ولا لو السعودية أهل السنة والجماعة تغشى قبطه ولقوا الشقين أي إنه دا حد إن حلوا هرو إلهي مهدي أرن كاسا صور ماذي دولة الفدرال كاوي وزارة المسؤولية السوئي أهل السنة والجماعة ويكيشي أن أرنكي وحلقوا هذا يوحي هايين دلب أهل السنة والجماعة وخصاص سنة ما دام أي كسو بيرين قلب وحشيس هراء وهي لقلين قلب أي كل مدوبين بوجري إني هلان xildhibaano ayaga u gaar ah oo ay ka helaan maamulkiisa hadda socodka ayadana waa laga heshiiyey waxaa lagu heshiiyey 20 xildhibaan maamulka cusub laga siiyo sidaas ay ku dhamaatay dadka reer galmudug iyo ummadda Soomaaliyeedna runtii guul u soo hooyatay oo ay ku wada bishaaraysteen ayuu ahaa arrintan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in intaas ay ku dhamaadaan tabashooyinku hore loogu gudbo dhismihii maamulka galmudug loo sameyn lahaa waaya wasiir marka xildhibaanadan galmudug ahlu sunna hadda la siinayo ma xildhibaano lagu kordhinayo tiradii xildhibaanada baarlamaanka galmuduga mase waa tiradii go'need ayaa qayb ka mid ah la siinaya habsukur haddaad fiirisay waraaqda wasaaradda ka soo baxday waxay sheegaysaa si cad u qeexaysaa in xildhibaanadaasi ka imaanayaan 89kii xubnood oo uu ka koobnaa golaha wakiilada galmudug ee hore midka hadda la dhisayaana uu ka koobnaan doono marka waa uun qayb ka mida tiradii xildhibaanada dowlad goboleedka hore u lahaa waa gartay xildhibaanada sida la wada ogyahay waxa soo xula odayaasha dhaqanka oo qaarna qayb ay ka haayeen oo ay ka hadlayeen sida hadii ahlu sunna la siiyo sida loo maareynayo marka arintan odayaasha dhaqanka oo iyagana xildhibaanada inay soo xulaan wasaaraddu ay ka shaqeynayso oo guddi ay ku howlan yihiin iyo numberkan ama tiradan la siiyay ahlu sunna si ayadana wax un loo dhan yahay la soo saaro sidee la isku waafajinaya cabdishakuur hadda dhaqanku waa dhaqankii galmudug inta cid walboo kale ay danaynayso galmudug inay dhisanto oo asaas adag yeelato loo dhammaado oo heshiis lagu wada ahaado iyaguna intoo kale ay danaynayaan xildhibaanadan la siiyey ahlu sunna waljamaacana ma lumin doonaan miisaankii wax qaybsiga beelaha ma luminayaan tiradu sidii miisaanka loo kala lahaa xubnaha golaha wakiilada sidoo kale u qaybsanayaan beelaha loogu qaybinayaa laakiin waxaa soo magacaabaya ahlu sunna wal jamaa marka miisaan ka lumaya beelaha ma jiro hadii aan leeyahay waa gartay marka hadda heshiiskan ahlu sunna xildhibaanadii maadaama uu dhamaaday maxaa xiga galmudug arinteedu waqti bay qaadatay doorashadii ilaa Agoosta ayaa bishii July ilaa waqtigan ayaad wasaaraddu qayb ka ahayd oo ay ku howlaneed dadkuna ay ka shaqeynayeen reer galmudug oo dhuusamareeb gogosha taale marka maxaa xiga sidee arintan dhismaha galmudug loo dhameystiraya adeero in hanaankan maamul dhisidda galmudug uu hore u dhaqaaqo runtii ma hore ahayd hawshaana uu ku soo korortay oo ay noqotay in iyada meel la saaro intii aan la gudagelin mid walba oo ka shaqayn lahayd iyo qorshe walba oo loo samayn lahaa si hanaankaas hore loogu wado waa diyaar heshiiskan keliya la sugayay laga bilaabo maanta waxaa lagu dhaqaaqi doonaa in arrinkaasi hore u socdo dabcan process maamul dhisid oo dowlad goboleed Soomaaliyeedna waxaa iska suurowda iyadoo ku xiran sida howlaha beelaha dhexdooda ay u fududaadaan in hore loo socdo haddii ay suurowdo annagu waqtiga aan ku talagalna inay wax ku darsatana ma diidayno inaan niraahno war hadda hawshin intaana ka dhimane waqti yar ha lagu daro
إن شاء الله وقت يسوق قبل وأركينا لكن in wax uu fursada la siiyo haddii waqtigu ku filan waayo waa wax lagu talagala waa gartay wasiir hore waxa u jiray heshiis hore oo ahlu sunnana ay sheegeen in laga galay oo heshiiskaasi 35 mudan in lagu sii ahayd oo wada hadalladan iyo arrintan dambe iyo in waqtigu seeta dheeraadana ay qayb ka ahaayeen marka heshiiskan hadda aad saxiixdeen oo 20 xildhibaan lagu siinayo sidee baa lagu dhaqan gelinaya wallahi adeerow arrinkaas waa laga fakeray qorshaana laga sameeyay qaabka waxaanay ku shaqayn karaan qaabkaas aan samaynayaan raaci doonaa wax kalsooni darro ah oo naga haya waxaana inay shaqayn waayaan hadda annaga nama hayaan waxaanan ogeyn oo hadhow de iska soo dhacana de inaan la xaalnay noqon doontaa haddii aan la yidhaahdo way ugu dambeyn galmudug loo dhan yahay in la dhiso dadka deegaanadaas oo dhan bay dani ugu jirtaa marka doorka bulshada iyo dhaqanka oo hadda u fadhiya magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan dadka reer galmudug ay qaadan karaan maxaad oran lahayd wallahi Cabdishakuur galmudug kama duwana dowlad goboleedyada shacbigeeduna kama duwana shucuubka dowlad goboleedyada kale oo Soomaaliya ku nool in la nooleeyo galmudug khilaafaad iyo waxyaabo soo dhacdhacaya runtii meesha hadda la joogo keenay maamulkan inay wax cusub oo jadiid ah oo ay isku raacsan yihiin ay helaan ayaan anagu ku shaqaynaynaa mideeda kale nidaamka hadda wax lagu dhisaayo weli ma gaarsiisna in la yidhaahdo qof iyo cod in maamul goboleedna lagu doorto dowlad federaalna lagu doorto hadda weli nooma hirgelin nidaamkaas beelaha lagu wadaa beelahana samaysan doona qaybtii ay ku lahayd beel walba inay ka qaadato taasina 2015 cadaada lagu dhameeyay beel walba waxa 89 xildhibaan oo golaha wakiilada ay ku leedahay beel walbana waxa laga rabaa inay kootadeedii keensato oo ay midaan ahlu sunna wal jamaa ay ku jirto la keeno sidoo ay u miisaanadaan marka waxaan isleeyahay aan rajeyno inay galmudug hesho markaan system ay ayadu isku raacsan tahay oo ay wada dhan yihiin iyagana danta ay dowladnimada ka leeyihiin siin kara